dowladda Turkiga ayaa Soomaaliya waxa ay ka hirgelinaysaa markaasi xarun markaasi laga tuuro gantaalada balastiga ee ridada dheereeya iyo sidoo kale xarun markaasi laga tuuro dayax gacmeedka waxaan kula wadaagi doonaa markaasi meesha sida gaarka markaasi dowladda Turkigu ay markaasi u aseesay in ay ka sameyso xogo iyo sidoo kale macluumaad ku saabsan ayaan kula wadaagi doonaa Turkiga oo qorsheenayo in Soomaaliya uu ka hirgeliyo xarun markaasi laga tuuro dayax gacmeedka qodobada kalena daawadayaal oo caawa aad ku daawo doontaan wararkeena waxa qayb ka noqonaya magaalada Baydhabo waa lagu kala cararay wasiiro cusub gudoomiyaal hore iyo sidoo kale saraakiil sarsare ayaa caawa waxay u goosteen ciidankii taabacsanaa Cabdicaziz Maxamed Xasan Laftagreen ee ku sugan duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaan si gaar ah kula wadaagi doonaa wasiiradan xilka ay hayaan iyo sidoo kale gudoomiyaashii hore markaas degmooyinka ay soo maamuleen iyagoo haatan markaas u goostay ciidankii taabacsanaa hogaamiyihii dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ninka lagu magacaabo Laftagreen oo haatan markaas ku sugan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya xog iyo sidoo kale macluumaad ayaan kaaga hayaa arintaasi qodobada kale waxa qayb ka noqonaya dadaalo markaas lagu doonayay ninka lagu magacaabo Jimcaale Jaamac Takar taliyihii hore ee Darab balse haatan dowladda dhexe bishii markaasi 13 bishii June ay u soo magacaawday taliyaha qaybta 54 ee ciidanka xoogga dalka dadaalo lagu doonayay inuu ku gaaro magaalada Garowe ayaa waxay ku soo dhamaadeen fashil iyo fool xumo ninka lagu magacaabo Jimcaale Jaamac Takar haatan markaasi waxa uu soo ruqaansanaya markaasi magaalada Garowe Saciid Cabdullaahi Dani hogaamiyaha dowlad goboleedka Puntland hal rajo uu lahaa caawa fashil ayay ku soo dhamaatay waxaan kula wadaagi doonaa markaasi xogaha markaasi ka imaanaya fashilka ku yimid dadaaladii lagu doonayay Jimcaale Jaamac Takar inuu ku gaaro magaalada Garowe ee xarunta markaasi looga arrimiyo maamulkaasi Puntland qodobadaas iyo sidoo kale qodobada kale ee nagu soo kordho ayaan idin la wadaagi doonaa daawadayaal balse haddii ay tahay marka kugu horeysay aad soo boqoto fadlan YouTube-keena subscribe saar oo gambaleelka furo muuqaalkana like saar like meel ay gaarsiisa maalmaha muuqaaladeena waa si wax baa ka qaldan meel dheer magaarooyin like saar muuqaalka sina share garay wixii fikirkaagana qaybta hoose faalada noogu reeb baad ku mahadsan tahay daawashada iyo sidoo kale jaanqaadka wararkeena mahadsan daawade caawa war weyn ayaa ka soo yeeray dowladda markaasi markasta dowladda Soomaaliya taageerta ee walaalaha aan nahanay ee Turkiga caawa war weyn oo farxad geliya dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo sidoo kale qof walba oo Soomaaliya oo ku farxi doono ayaa caawa ka soo yeeray warkaasna waxa uu noqonayaa kadib Turkiga waxa uu ku dhawaaqay in Soomaaliya markaasi uu ka hirgelinayo xarun markaasi laga tuuro gantaalada balastiga ee ridada dhaadheera iyo sidoo kale xarun markaasi laga rido dayax gacmeedka waxaad isweydiinaysaa marba haddii Turkiga uu ku dhawaaqay in dayax gacmeed iyo howlahan balastiga Soomaaliya uu u gelinayo waad isweydiinaysaa marka magaaladee ayay u qorsheeyeen markaasi Turkiga in dayax gacmeedkan iyo sidoo kale balastiga markaasi xarunta laga tuuro in laga abaabulo oo dhismaheeda laga bilaabo waxa loo qorsheeyay magaalada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa loo qorsheeyay xaruntan dayax gacmeedka iyo balastigada in dowladda Turkiga saldhig weyn ay halkaas ka sameysato sidoo kalena markaasi laga hirgeliyo xarun dayax gacmeed iyo meel gantaalada balastiga ee ridada dhaadheer markaasi laga rido taariikhda Soomaaliya ayaa yeelanayso meel dayax gacmeed laga rido taariikhda ayaa waliga waxa laga yaabaa inaad arkin Soomaaliya oo markaasi dayax gacmeed laga ridayo ama Soomaaliya oo gantaalada balastigada oo ridada dhaadheer laga ridayo caawa jug xoogan ayaa Muqdisho ka dhaceysay waxaad arki doontaa bilooyinka nagu soo food leh Soomaaliya oo markaasi yeelatay xarun markaasi dayax gacmeedka laga rido oo iyo sidoo kale markaasi gantaalka loo yaqaan balastigada oo ridada dhaadheer warkaasna waad ku farxi doontaa in dowladda Soomaaliya marba marka ka sii dambayso horumar kala duwan oo tiknoolajiyada ay sameynayso sidoo kalena markaasi ay la tartami doonto dowlado badan oo markaasi caalamka ka tirsan Turkiga Soomaaliya haddii ay noqoto dhanka ciidanka haddii ay noqoto dhanka isgaarsiinta haddii ay noqoto dhanka tiknoolajiyada wax walba uu ka taageeraya haddii ay noqoto dhanka shidaalka oo la og yahay in markaasi goobo badan oo markaasi dalkeena kamid ah in shidaal laga helay haatan caawa dowladda Turkiga waxay ku dhawaaqday in Soomaaliya ay ka hirgelin doonto markaasi xarun laga ridayo labadan lagu magacaabo balastigada iyo sidoo kale dayax gacmeedka arinta dayax gacmeedkana sanadkan bilowgiisa ayay soo bilaabatay oo wax bilow amahan dowladda Turkiga ayaana markaasi ku dhawaaqday caawa markaasi in bilooyinka soo aadan ay rajeynayso
in ay markaasi saldhig weyn ka samaysato markaasi magaalada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe. wixii xogtan ka soo kordho ee dayax gacmeedka iyo gantaalkan balastiga ah daawadayaal iyaduna waxaad ku daawan doontaan wararkeena kale iyo sidoo kale muuqaalada xiga. aan u soo laabana marka magaalada Baydhabo oo maalmahan xaaladeedu ay ahayd mid aad u qasan, shacabkan waxa soo food saaray walaac aad u xoogan. magaalada Baydhabo caawa waa lagu kala yaacay haddii ay noqoto wasiiro, gudoomiyaal, saraakiil sarsare, ciidan intuba waa lagu kala hayaamay. waxaad arkaysaa maalmihii la soo dhaafay saraakiil ayaa goostay, ciidan ayaa goostay, waxay ku beereen ciidankii lafta gareen. caawa warkaas warka uu ku duwan yahay, waxa soo yeeraya markaasi wasiiro wasiiro ahaa xilligii Cabdicasiis lafta gareen, gudoomiyaal iyaguna markaasi gudoomiye ahaa xilligii Cabdicasiis lafta gareen. waxa marka caawa iyaguna si toos ah u goostay wasiirkii hore ee wasaaradda hawada ee markaasi iyo dekedaha Koonfur Galbeed, isagu toos ayuu ku beeray ciidankii lafta gareen. muuqaal ayaa la soo duubay, baraha bulshada ayaa lagu baahiyay. waxaa sidoo kale isna caawa goostay wasiiru dowlihii wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha maamulka Koonfur Galbeed, isagana waa ku daayay caawa. waxa uu caawa la hooyanayaa furmaha hore dagaalka uu kula jira ciidankii taabacsanaa Cabdicasiis Maxamed Xasan lafta gareen. waxa ku soo haray markaasi gudoomiyaha aad wada suugayseen, waana gudoomiyaha degmada Waajid ee gobolka Bakool. isna caawa waa uu ku daayay qorigiisa booshka, macawuustiisa, go'iisa shaalka ayuu caawa isaguna geeska la seexanaya. marka ciidankii taabacsanaa Cabdicasiis Maxamed Xasan lafta gareen ee markaasi ku sugnaa duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. aadan madoobe xaaladda ayaa ku xun marka maalinba maalinta ka sii dambayso. lafta gareen ciidan ku biirayo, saraakiil ku biirayo, wasiirro ku biirayo. haato marka waxa dhimanbo in magaalada Baydhabo ay ka guuraan dad shacab ah oo markaasi ay u guuraan dhankaas iyo ciidanka lafta gareen meesha ay degan yihiin. waxa la sugayo waa in magaalada Baydhabo kaliya ay ka dhacdo, wax walbo waa ay ka dhaceen magaalada Baydhabo. qodobkan ugu daway caawa marka hadii aanu gudu galno, waxa fashil iyo foolxumo ku soo dhamaaday wada hadallo markaasi lagu doonayay taliyaha qaybta 54aad ee ciidanka xoogga dalka ee ka howlgala deegaanada Puntland, ninka lagu magacaabo Jimcaale Jaamac Takar. dadaalo lagu doonayay in isaga iyo ciidankiisu ay ku soo galaan magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland. wada hadaladii waa ay dhamaadeen. Saciid Cabdullaahi Dani halkii rajo uu lahaana caawa markaasi mugdi ayuu sii galay, oo Jimcaale Jaamac Takar guddigii loo diray inay dhexdhexaadiyaan waa heshiin waayeen, waa lagu kula booday. marka Jimcaale Jaamac Takar go'aan ayuu ku qaatay markaasi in xoog isaga iyo ciidankiisu awood iyo quwad weyn ah ay ku soo galaan magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. Danina culayska waa uu ku sii badanayaa. maalmihii ugu dambeeyayna waxa la arkayay markaasi ciidan ka tirsan kuwa Puntland oo 7 bilood ee la soo dhaafay mushaar la'aan oo cabanayay kuna biiray ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya oo haatan awoodooda laga dareemayo deegaanada maamulkaasi Puntland. ninka lagu magacaabo Jimcaale Jaamac Takar oo ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta waqooyi bari ee Soomaaliya, maalmaha soo socda waxa uu soo ruqaansan doonaa soo gaarista magaalada Garowe ee caasimadda maamulkaasi Puntland. Saciid Dani waa uu diidan yahay markaasi in ninkan Jimcaale Jaamac Takar uu soo gaaro magaalada Garowe ee caasimadda markaasi Puntland. god ayuu ku dhacay rajadii uu ka lahaa in wax walba wada xaajood lagu dhameeyo, Jimcaale Jaamac Takar lagu qanciyo taliyaha daraawiisha dowlad goboleedka Puntland uu ka tanaasulo xilka dowladdu ay u magacaawday oo ah taliyaha qaybta 54aad. Saciid Cabdullaahi Dani caawa marka waxa uu markaasi u bareerayaa Jimcaale Jaamac Takar iyo ciidankiisu markaasi in ay yimaadaan qaybo ka mid ah markaasi Puntland. Dani waxa uu diidan yahay in Jimcaale ninka lagu magacaabo iyo saraakiil sarsare oo markaasi ciidanka dowladda ka tirsan in ay iyagu soo gaaraan magaalada Garowe oo ah caasimadda markaasi Puntland. Danina awood ayuu ku leeyahay magaalada Puntland oo aan dhahay magaalada Garowe oo ma doonayo in markaasi isaga iyo dowladdu ay markaasi awood saham ah ay ku yeeshaan caasimadda markaasi